WHO ayaa sheegtay in 1% oo kaliya dadka Afrikaanka ah si buuxda loo tallaalay. madaxa xarunta ka hortagga cudurrada ee Afrika John Kangson ayaa sheegay in mowjadda cusub ee cudurka ay la timid darnaan iyadoo wadamada badankood aysan u diyaarsaneen sidaa darteedna ay tahay mowjad aad u xun wuxuuna ku celceliyay baahida loo qabo in si dhaqsi ah loo helo tallaal badan oo ku filan si looga hortago xanuunka. qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in tiradooda lagu qiyaasay 230,000 ay ka barakaceen dagaalka Myanmar kuwaasi oo u baahan gargaar. kooxda qowmiyadda ugu weyn ee hubeysan ayaa walaac waxa ay ka muujisay awoodda militariga dhimashada dadka rayidka iyo si fiditaanka isku horimaadka. Myanmar ayaa shida ku dhex jirtay tan iyo bishii February oo afgembiga lagu riday dowladii la doortay taas oo dhalisay carad dalka oo dhan ah oo horseeday dibadbaxyo dilal iyo duqeymo iyo isku horimaad meelo dhowr ah ku dhex maray ciidamada iyo xoog rayida oo madhow la abuuray. xafiiska isku xirka howlaha adminimo ee qaramada midoobay ee OCHA ayaa waxa uu sheegay in howlaha gargaarku ay socdeen laakiin ay xanibeen isku horimaadyada iyo amni darrada ka jirta dalkaasi. warkiina dhageystayaal waa naga intaas. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada Nairobi ka soo diyaariyay Qadar Maxamuud Xareed. dhaqanka bulshada Soomaalida ayaa la rumaysan yahay inuu waxyaabo badan uga duwan yahay dhaqamada kale ee dadayowga kale ee adduunka. haddaba maxaa keenaya in ragga Soomaalidu ay guursadaan gabdhaha ajnabiga ah ama in dumarka Soomaalidu ay guursadaan ragga ajnabiga ah? dhaqan ahaan maxay ka dhigan tahay arintaasi? waa qodobka aynu toddobaadkan ku soo qaadanayno barnaamijka sooyaalka dhaqanka VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. waxaana barnaamijka marti igu ah oo igala qayb galaya Cabdinaasir Axmed Barkhadle iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed oo kamid ah dhalinyarada hal-abuurayaasha dhanka dhaqanka iyo suugaanta ee ku nool magaalada Nairobi. marka hore labadiinuba ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka VOA. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waan dhownahay waadna mahadsantihiin mareen iyo qoladiina VOA. waan dhownahay Khadar Maxamuud Xareed waana ku dhownahay VOA iyo adigaba. waayahay su'aasha ugu horeysa haddaan Cabdinaasir Barkhadle siiyo marka laga hadlayo dhaqanka Soomaalida iyo guursashada guurka ajnabiga ama in raggu ay guursadaan gabdho ajnabi ah ama in gabdhuhu ay guursadaan rag ajnabi ah muxuu ka qabaa dhaqanka Soomaalida? waa ku bidco dhaqanka Soomaalida. arintaas dhaqanka Soomaalida bidco bay ka tahay. waa arin bidco ah oo aad iyo aad bidco ah waliba dhaliisheeda wadata. tusaale markaan ku soo qaato maamaada leeyahay oo kaleento ilmaha hal mar buu hiila kaaga baahan yahay halka marna waa markaad hooyadii guursanayso. haddii aad islaan Oromo guursato ama mid Eritrean ama mid Suudaniis ama tu kalo Carbeed ilaahay cid kale yahaan haddaad guursato iyadoo gabadha Islaam tahay xitaa oo sharciga Islaamku ku diidaynin haddaad guursato gabadhan kula af ahayn horta ilmahaaga 3 arrimood baa soo wajahay. bulshada waxaa ka soo wajahaya caqabad taasoo ah in ilmahaagii la dhaho waa ina gudho waa ina hiblaayo waa ina kaneed oo adiga magacaaga lumo oo cay bulshada ka soo wajahdo koow la kulmaya. waa labo afkiisii hooyo ee adiga lagu dhalay ee la rabay inuu dhaxal ahaan kaaga helo inuu dhinto oo af baaba'an noqdo oo heerkii laga rabay uu gaari waayo ayaa dhacaysa. waa qodobka saddexaad ee dadka uu ka sumadan yahay. marka arrintaas waa ku bidco dhaqanka Soomaaliga bidcay ku tahay. markaad fiirisid xilliyadii hore ma u jiri jireen in ay ragga Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalidu ay dad kale oo ajnabi ah ay guursadaan? maya ma dhici jirin inta badan. hadday dhacdana dee wax la arki jiray ma ahayn wax la isla fiigo oo ummad isla dhuuntay ahaayeen. waxaa macquul ah haddii qabiilada Soomaalida aad gadaal ugu noqoto inaad aragto qabiil 25 qabiil ilaa 8 9 abtirka laga tirsada ama 10 iyo 11 oo laga yaabo inay islaam meel ka soo gashay oo islaanti loogu magac daray inaad aragtaa macquul ah. taas oo aad garanayso in weli heerkii ay caqabado haysato lagu caayayo ruuxan waa bahiblaayeen naga daayay leeyahay arkaysaa fara badan waana badan yihiin qabiilada Soomaalida markaad hoos u dhex gasho arrimaha iyaga marka waxaad ka garan kartaa xitaa qabiilada dadka soo galay waxa laga yaabaa inay Soomaali ahaayeen xoogaa yar la gacan bidixiyay oo arrimo khalad ku imaaday balse haddii ummad kale ay soo gashay dawliga kaama harayso sida waxay kula soconaysaa jidkaaga oo adiga kula soconayo oo kale ama hooskaaga oo kale intay kugu ahaanaysa. waayahay waan kugu soo noqonayaa Cabdinaasir. waxaan siinayaa Cabdiraxmaan oo barnaamijkan kala qayb galaya. Cabdiraxmaan ku soo dhawo. waan dhawahay Khadar. waxa weeye sida uu Cabdinaasir sheegay horta mahmaha badan waa jireen. mahmaadiisi laba eray bay soo xusuusay aniga oo ah ninba
wuxuu ahaa aftahan baa ereyga la yahay waayahan baa abgaan aan maqalay marka wuxuu yidhi isagoo geel ceel uga heesaya wiilaan hooyadii geed harweyn iyo huluul loo gelin meel habboon iyo hareer kama shubabiin erey kale isaguna wuxuu yahay Sheekh Mustafa oo waxaan maqlay kale leh luqadda afka Soomaaliga yaani markii arintii shisheeye tahay ama oo shisheeye ruuxa ku dhaasho de islaam luqadeeni baa diintii kamid ah buu leeyahay oo maxaan ku dhahay caalamka wuxuu isku fahmaa ruux kastaba luqadiisa hooyo iyo macalinkiisa oo hooyadii ah yaa lagu gaarsiin karaa diinta marka sida uu sheegay arintaas waa arin gaf ku ah way dhici jirtay balse laakiin ma aha sida for example waxaad arkaysaa dad oo maartay gibigooda horeba gibigooduba ka maartay Soomaalinimadku qaar luqad qalaad ku hadlaya qaar ay waji ahaan isbedeshay oo hindi u ego laga yaabo inay hooyadii hindi ahayd yaani marka maxaan ku dhahay saas weeyaan maartay waxa weeye arintaas waan ku raacsanahay ninkaas inay maartay ay ayna sax ahayn guurku waxyaalo badan oo khaladaad oo dhacana waan aragnaa de Nairobi dinay maartay ka dhacaysaayo maartay mistake badan weey adigu waxaad wax ka samaysay gabayo dhanka suugaanta oo ku saabsan dhaqanka iyo guurka marka hore ma loo kulantay dhacdooyinka noocan oo kale taa dabcan waan la kulmay rag saaxiibaday oo maartay ii sheeg waliba inaan aniga saaxiibo ahayn baa jiray oo dadkan hadda de reer Kenya aynu wada deganahay gabadh ka jeclaaday marka ninkii baan suugaan baan kula hadlay waayo afka dhaqankeena waxa kamid ahaan jirtay waagi hore sarbeebta kamid ahaan jirtay suugaanta oo la isku suugaantii marka waxay noqonaysaa sarbeeb bay noqonaysaa marka ninkaas waxbaan u sheegayay marka maan sameeyaa gabay baan kula hadlay ninkii marka waxaana ku yiri garbasaar midii qaadatay gacanta saydhaaba inaan gabadh u raacaa ma aha oon gorgoriyay gambadii rag baa guudka dayagaaliya islaani oo galab miday soo arkaan geenyada oo tahay hadba seen gashaantidii kacda guudka uga eegan goolaliya sarmaan iyo galol marka geedahan inay geeduhu geeda wada yihiin baan u sheegay laakiin ay kala yihiin goolaliya sarmaan iyo galol gacandhidoo jiifta gidigoodba geedaha galaan waana kala gaaray ila garo godkaan dhigahayo gacan togaaleynta oo geed madow iyo higlada ha u gacan haadin wuu sii socday oo marka waxaan yiri guryas guursan mahay gabadhan gun iyo baar la garanayni midaan goobta jirtaan idin garwaaqsiini gurin ana marka iska hadlay gurinay gabdhiya wiilal badan meelay goobi taalo oo geesi wiiliyo ugaas goyni taladeeda goday iyo waxa laga helaa gobolladeennii gabagaba anoo heli kariya gowga iyo laago goobta dahara joogtiyo garbiyo nagob gawaankeeda cid gudur wardheer iyo halkay guba ka maansootay garawiya anoon gaarsiye gada ka heeneedin gaf maxaan u geliyon cid kale goloba no meeri marka uu sii dheer yahay markii dambe maartay dhulkan marinahay sheekada waxa ku jirtay uu dheer yahay markaan gabadh garaa dalay rabiyo inan gayaanka guna gada gurdumi iyo digbaan geediga u rariyay guryo sama qadaamurana waa gogol dhigeediya galbiskana waxa looga dhigi geedsan dhagax buur marka ninkaas waxaan u sheegahayay yaani aslan anu meel baan ka imaaday Soomaa inuu maartay dhacdhacba inaana dhacdhicin baan u sheegahayo maartay isaguna uu sidaas oo kale maartay uu ka digtoonaado oo uu meeshaas iska daayo laakiin igama yeelin wayahay maxay kula tahay maxaa keenaya ama keeni kara in Soomaalidu ay guursato dadka kale ee ajnabiga waxaan u maleynayaa kolley waa salfudayd erayga salfudayd baan adeegsan karaa waayo de nin kumanaan gabdhaheeni oo qurqurux badan oo qalanjooyina arkahayo inuu maartay ii sheeg naga in isku af ahayn laga yaabo hatta isku diin yihiin isku dhaqan inayna ahayn maxaan ku dhahaayay sodohdeed iyo sodog waxaan jeedaa sodohdii iyo sodogitoona uu si aqoonin de waxa u geeyaa waa fadul baan u arkaa laakiin de hadda adduunkii waa horumaray oo waa la isdhaxgalay oo interaction baa dhacay dadka qaarna waxay sheegaan in dhaqankii in meelo loo baahan yahay in de adduunkii in la dhaxgalo miyaa wax dhib ku jira dabcan
waayo waxa for example haddaan ku soo qato caalamka ninku markuu hogaamiyaha noqonayo meesha ugu horeysa la iska fiirsho waxa weeye hooyada weeye madaxweynaha hooyada laga fiirshaa markuu dal shisheeye for example hadda Obama oo kale hadduu de hooyadii ay Kenyaan ahayd inaan waxaan u maleynayaa aan loo dhiibeen de hooyada loo fiirsho hooyadu waa naaska moogtay waa ajiib weeye marka taa darteed waxa weeye saameyn badan buu leeyahay suldaamado kale for example suldaamadii Soomaalida waxa loo fiirin jiray hooyada ma ahaan yacni aabaha waligaa yaalaha mid kale for example haddaan ku sheego ma maqashin nin la leeyahay adeerkii buu raacay ninkana abtigii buu raacay mooyaane adeerkii buu raacay miyaad maqashay ma jirto si kasta adeerkii hadduu u xumaa ama u fiicnaa lama dhahayo adeerkii buu raacay laakiin hadduu abtigii libaxa abtigii buu raacay la leeyahay hadduu abtigii xun yahayna abti meel xun laga raacay la yiri marka saas weeyii kugu soo noqonaya Cabdi Naasir xilliyadii hore guurka sidii u ahaa dhaqankeeni xilliyadii hore horta halku dhig buu guurku laa waxa la dhihi jiray wax la yaqaan guurso wax la yaqaan lagu dhale wax la yaqaan guurso wax la yaqaan lagu dhale waxa weeye gabadh hooyadeedii aabaheedii ehelkeedii tolkeedii xigaaladeedii la yaqaano baa lagu hammi jiray lana damci jiray guurkeeda haddana waxaad moodaa way duleeshaabo ama waa gabadhba ama waa haweeney inay arrintu ku soo laabatay waxa kale sida uu sheegay jiic arrimo fara badan baa ku duugan arrinta hooyada waxa kamid ah dhulku waa dhulka hooyo markaan dhulka hadlayno waxa la dhahayaa dhulka hooyo lama dhahayo dhulkii aabbo waxa afka markaan ka hadlayno waxa la dhahayaa afka hooyo hooyadu marka waa aas-aaska maadaama marka wixii la raadinayay ay hooyo tahay adiga waxaa loo baahan yahay haddaad nin tahay inaad ilmahaaga hooyo fiican oo asalkooda afkooda dhaqankooda hidahooda arwaaxdooda iyo jinsigooda iyo barashadooda ilaalisa inaad guursato lagaaga baahan yahay waa koow waa markaad nin tahay haddaad gabar tahayna waxaa loo baahan yahay laba arag dibi intuu tago fuula qaalin geel ah ma dhacdo ama riti intuu tago fuula sac lama arko waa qarni waliba weeyaan waa hadii ilaahay ku soo hees baa waxay ahayd magac qaalin waliba awrkeed waxa weeye gabar baa tahay Soomaali baa tahay nin Soomaali rag Soomaaliyeed baa buuxa nin Soomaali guurso waxa tahay nin baa tahay gabdhii Soomaaliyeed baa buuxa oo xalaal oo saf garanaysaan oo sadox leh oo siidile oo sodog leh oo qaraabo leh oo wax walba garanayso maxaa adeer ku kalifayna dad ajnabi iyo taytay to dabaysato taas waxaan dhihi karnaa waa iimaan la'aan baan dhihi karnaa ama dhaqan xumaan dhihi karnaa laba tusaale yar yar haddaan ku soo qaato tixaan tiriye Soomaalidu khaladaad fara badan bay fahantay oo kamid ah xagga waxbarashada xitaa khaladaad baa laga fahmay Soomaalidu waxay ka fahantay luqadaha kale xitaa inay uga maaranto iyada afkeeda u qaadatayba oo ma ahan gabdhaha kaliya in laga maarmayo ama guurka kaliya waxay u qaateen xitaa in afka laga maarmo marka mar waan ilaha gidiga adduunka iskuul ubadka geystay in la gala tacliinta cilmiga guula laga keeno jahligana la gowraco ayaa gacalka deeqday ha yeeshee gudnimo waa inaad geedin noqotaay oo gaar wixii ku ahaa aad ka gudubtay oo aad daba guclaysaa dadaan gina ku dheerayn geeska gees u siman aadamuhu maadi galistiye saynis guuna fiisigis garbale social garab yaale luqadaha waan kala gudnaa qoloba gaarkeeda inaan garab marno hooyadeen aan af garan weyno oo gibilna saaraa ajnabi tiisa gudanay oo graan ugu xidhaa laga gudtaayo aqoonyahan garaadale adoo madax ah oo geegsan oo dadaan isgeyn maamulaha gorof la sheegay gardaad lama hilmaamiyo adeer gaawuhu qoray mar waanigi saalaha gobaygaas waxa la dhigi jiray galla mar kalena waanigi lahaa dilaa idmahayo anoo la yaaban tacliintan iyo waxyaalahan iyo falaadxumada qaarkeed haddaan ku furfurayaa football waa koow horyaal Yurub la faystay Fabregas Fernandes waxbay faaqidayaan qaar baa isfeero ragga Faaniska u weyn mutacallin far Soomaaliga faatixa aqooni Faransiisna ku qorayo Faris iyo China warar mo faquuqmaan nafluhu kala fur weeyaan dhalada la fiirsado guriyaha waa fadhiyo moosha islaantii facweyn iyo caruur ama safoodleyba filmaan shisheeyaa qabsaday faracyadeen iyo fooda rigdaysto gadaal laba farxiireen surwaal fiiqan bay soo xidhaan mana fadhiistaan funaanada ciriiri wata loo faltabayay fankii lagu wareeriyo haween faydan baa yimid fanaanimo la sheegtaa waqtigan waa fanto kale dhaqan sii faqiiroobayaan fooxushada ayaa caashaqi farubiyaha afkii feedhu qarinaysay fududa fagaaraha la keen figagix weeyaan furiin iyo garoob soo fataa faashinka dhalay dad afkoodii fooruhu la tagay oo fidada geeyay oo feex ku taalo ra'yi uu furan duleynay waa sida findhicilkii wadaad sheegista u furan dhalinyaro waxaan idhi dhalinyaro fandhaal iyo fahmay furarkii dhiishooda oo aan falaadhi aqoon faas wax lagu qoto oo ku fayooba waqtigan furuq ka joogaa waxa weeye markaan tixahaas ku soo qaadaya kala duwan iyo maartay dhaqankan isbedelay iyo balaayadan iyo waxan waxa dhan wuxuu ka imaanayaa aas-aaska wiilka guursanaya gabadh ajnabi ah aabihi baa dhaqmi jiray iyo hooyadii baa dhaqmi jirtay asal ahaan buu ka soo jeedaa meel xillu ka soo jeedaa runta ku sheegaynaa adeer xaqadan sheegaynaa waxa weeye gabadha dhaqmaysa ee iska raacaysa oo mada kaleento iyadana de hooyadeed baan dhihin waxana fiican iyo waxana san ilmuhuna kama soo hara aas-aaska iyo qoyska si aad u ogtahayba amuuru waa guri
guriga markii aad joogto ee guriga intii ilaahay idmahayo ay hooyo fiican joogto ilmaha si edeb loo barbaariyo afka lagu koriyo dhaqanka lagu koriyo hidaha lagu koriyo ilmahaas wuxuu noqonayaa ilma hayin ah ku habboon Soomaalinimadiisa ku habboon islaamnimadiisa fiirsanaya tilaabadiisa qaadaya ilma nool buu noqonayaa laakiin haddii aan la dhihin xagga u leex wax walbana waa caadi leeyri laakiin waxa la leeyahay in gabdhuhu ay gursadaan rag shisheeye raguna ay gursadaan gabdho shisheeye waxa keenaya guurkii Soomaalida dhexdeeda oo adkaaday beelaha qaar oo la faquuqayo marka dhibaatadaas miyaysan jirin aan kala qaadno labaan u kala qaadayna faquuq wixii la faquuqay waa arrin gaar ah xagga inoo dhig waa arrin inaga weyn oo jiilkeenan aan la daahayn waa inaga ballaaran tahay taas waxay u baahan tahay qorshe dheer oo lagu tirtiro taas xaggaan dhigaynaa midda la faquuqay dee inadeer bay leedahay iyadaba aan la faquuqan oo ay guursan karto waxna ayna kaga lumayn guurkan adkaaday sababtu u adkaaday maxay tahay yaa adkeeyey xagee see u adkaaday ma nolosha adkaysay ma dhaqanka adkeeyey ma maalka adkeeyey wixii adkeeyaa loo baahan haddii waalidiintu ay adkeeyeen waalidiinta ayaa sababa inuu ilmuhu hallaabo haddii dhalinyaradu ay adkayseen dee iyaga laftooda u baahan in shaqo laga qabto marka see u adkaan karaaba wayba israabaan labadii qof waa laba qof oo islaam waa laba qof oo Soomaali waa laba qof oo isafgaran laba dhihi kara guur baa adkaaday ee waxa dhihi karaa dhaqan xumo iyo iimaan la'aan iyo xira dhaaf waxa jira xira dhaaf la dhaho mugti gogol dhaaf iyo daw dhaaf baan dhihi karnaa dhaqanka Soomaalida muxuu ka qabaa in wiilka marka uu gabadh doono oo uu doonayo inuu guursado loo diido muxuu ka qabaa dhaqanka waa khalad arrin khalad dhaqanka Soomaalida khalad bay ku tahay waa dhici kartaa nin iimaan laawa ah oo bariis doon ama igu soo riday oo fujaan afka u kala hayo inuu dhaho gabadheed intaasaan ku rabaa oo gabadhi xujo geliya wax dhici karo dhaqanka Soomaalidu ka dhici karta ninkaan iimaan laawa loo yaqaan iyo qaaqle waa nin iimaan la laakiin nin caadi ah markii laga hadlayo nasab ah oo xalaal ah oo Soomaali ah oo caadi ah marka laga hadlayo ee uu gabadh soo doono nin kale oo Soomaali oo xalaal ah oo nasab ah oo turxaan soo gelin ee uu imaade uu dhaho gabadhaadaan rabaa duca inuu ugu daray ahayd ma ahayn ba inuu ka hadlo ومرك دقنك عادي سوما مثل كله دتك عادي قبلها طلع وحشودان وعدت حشوده أو إيمان له لكن نكي عن عادي هين سوما اللي ممثل وحنا ممثل سيدا نك اللي يلاهدو يعني إن حريضو وحنا رن إن ممثل سيدا النبا إنك هذا سومالي النهاي وحنا ممثل دتك في عن ما سومالي يقول لي الدولة جيلي دي بقول كتاي نك إيمان الله وها ربينو قبل يبسدو أما كان ديدا أما كان هنقردونك كل يوم ممثلين دتك نافي عن بحاجة وبشدة أنت في عن أيه جانو مركب حلو baahan intaana fiican inaan nolol caalami ah qaadno dadkeena aan u sheegno waxyaalaha khaladka ah dhalinyarada loo sheegay inuu guurku xalaal yahay iyagu isu baahan yihiin dadka ajnabiga ah inay soo galahayay dhibaatooyinkiisana waa sida ninkan jiica uu inoo sheegay uu yiri xitaa suldaanka waxa laga fiiriyaa hooyada madaxweynaha waxa laga fiiriyaa hooyada naagta uu qabaa la eega way ogtahay aaska guriga arrintu kama soo hadho marka waa in la ilaaliyo arrimaha iyaga waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarada waxaan idin leeyahay asalku waa maguuraan dhalinyaroy ku xisaabtama inaad idinku ishurantihiin idinka ayaa ishuran afka iyo dhaqanka iyo hiduuna waxay ku waari karaan ama ku barbaari karaan marka inagu noqono bulsho dhisan oo asal ahaan u dhisan iyo qoys ahaan waan kugu soo noqonayaa Cabdiraxmaan adduunka waayadan dambe waa dimuqraadiyadda aadka uga han qaaday dadku way isdhexgalayaan maxay kula tahay dhalinyarada iyo dhaqanka iyo sida la isku waafajin karo maaragtay isdhexgalkan adduunka ee dimuqraadiyadda horta dimuqraadiyadda iyo dhaqanku way kala yihiin waa laba kala weyn weeye dimuqraadiyadduna waa system dawli ah ma aha yacni ii sheeg guurka iyo jinsiyadda iyo haddii uu ku sabogol yahay dhaqanka iyo kamid ma aha hidaha iyo maxaa la dhahaayay asalka kamid ma aha marka anigu waxaan leeyahay baashayaan la isku darin way kala tahay isku dhinacna waxa la dhigi jiray timahanagu isku dhinac ma xiirmaan marka isku dhinacba uma socoto dhaqanku waa wax soo jireena inagu waxa weeye dad waxaynu nahay markaynu hore reer guuraabaynu ahayn marka suugaanta dabagal ku samayso iyo waxyaalahaas waxaynu nahay dad aad moodeynayno dunida la soconay haddana reer guraabaynu saa ku nahay oo waayo de nin kastaba ninkii beer qodan jiray de waxa la qodataa la ninkii geelayaha way kala tahay moogtaan waa hore waxaan maqlay nin la yiraahdo ninkii la oran jiray qamaan bulxan baa gabay isagoo de berigi dhergidi ma aqaan adugu gaaladii hore dalka markaas maartay markii gumaystuhu ku cusbaa dhulka iyo waxa dhacday inuu isagoo ciida sare jira dhulkan hawdka la yiraahdo yaali hundaha loo guro marka wuxuu leeyahay
war yani ereyga war markaas oo sida idaacadna ma jirin hadii warka walba hindiya walba meel hebla nooga yimaaday marka dad waxaynu ahayn adduunka la socda balse laakiin xoolo dhaqata ah oo dhaqankooda ku adag ninkan su'aal kale isagana weydiisay su'aashaas waxay ahayd oo raba inaan yar taabto ninka marka gabadh loo diido weligeed baa loo diidi jiray ama xoolaha la doono ama gabadha ninka ha la baxo maalin dhaweyta maase waxaad aragtay meelahan miidiyaha dhex socotay maaragtay social mediaha oo intay gabadhu soo hadashay maanse ay qortay aanu ka daba jawaabnay waxaa ku jirtay nin aan la hadlayay yacno duunyihii ninkii maal lahay dumarku raacaan ereygaasa ku jira marka taa waxaan leeyahay dee weligeed baa xoolaha wax lagu kala qaadi jiray oo ninkii geel badan oo maaragtay dee dabac dhaqda unbaa oo gaawiisu maaragtay culan yahay unbaa gabadha dee soo dooni jiray oo qaadi jiray oo maansooyin badan oo waxaa jira aan ku xusnay inkastoo maaragtay sheegay ay baashu dheer tahay oo ay siyaabo kala duwan u hadlayso hadda tan ayna meesheeda ahayn marka waxaan leeyahay anigu way kala tahay dimuqraadiyadda iyo dhaqanku waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdinaasir axmed barkhadle iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada halabuurka ee ku nool magaalada Nairobi waxayna igala qayb galayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee VOA tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijka la mid ah nabadgelyo haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay in la baabi'iyay gabi ahaanba nidaamkii farqiga goolasha ee lagu kala saari jiray kooxaha ka ciyaara tartanada kubadda cagta Yurub sida Champions League, Europa League iyo tartamada kale ee qaaradda Yurub. nidaamkan ayaa soo jiray tan iyo 1965 waxaana uu go'aan ka gaari jiray kooxaha ka ciyaara tartamada Yurub gaar ahaan kan ugu caansan ee UEFA Champions League marka ay midba gurigeeda ku ciyaarto balse waxa ugu dambeyn gudbi jirtay kooxda goolasha badan ku soo dhalisay meel ka baxsan garoonkeeda. dhinaca kalena koobka qaramada Yurub kadib markii Arbacada la soo gabagabeeyay wareegii koowaad ayay xulalka isku diyaarinayaan Sabtida in ay ciyaaraan wareega 16 waxaana lagu bilaabi doonaa xulalka Wales iyo Denmark habeen dambe. sidoo kale Talyaaniga ayaa habeen dambe magaalada London gaar ahaan garoonka Wembley kula ciyaari doona kooxda qaranka ee Austria. Talyaaniga weli lagama badanin weliba 30 kulan ee la soo dhaafay marna dhinacooda dhulka lama dhigin. 3 kulan ee uu ka ciyaaray koobka qaramada Yurub wax gool ah lagama dhalin waxaase su'aashu ay tahay ma laga badin doonaa kooxda qaranka ee Talyaaniga. ciyaarta dhex mari doonta Wales iyo Denmark ayaanan la saadaalin karin inkasta oo Denmark aad moodo in uu yara ka gacan sareeyo kooxda qaranka ee Wales. axadana waxaa ciyaari doona Holland iyo Czech Republic. sidoo kale Belgiumka ayaa la dheeli doona Portugiiska. Isniinta soo socota haddii uu Rabraali ka noqdana Croatia iyo Spain ayaa food isdari doona halka Switzerland ay la ciyaari dib dambe ayaan idinkala soo socodsiin doonaa hadduu Rabraali ka noqdo. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino Cristiano Ronaldo ayaa la leeyahay weli mustaqbalkiisa ciyaareed ee dhinaca kooxda Juventus go'aan lagama gaarin. Juventus ayay wararku sheegayaan inay doonayso inay iska iibiso laacibkan u dhashay dalka Portugiiska. Ronaldo ayaa hadda wacdaro ka dhigaya koobka qaramada Yurub isaga oo hogaaminaya dhinaca goolalinta kadib markii uu dhaliyay 5 gool 3 kulan ee ugu dambeysay ee uu ciyaaray. mushaarka uu ka qaato Juventus oo ka badan 30 milyan oo euro sanadkiiba ayaa dhibaato ku haya maamulka kooxda Juve. kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa loo badanayaa in hadiiba uu ka tago Juventus uu qaban doono. ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Denmark iyo kooxda Sampdoria ee dalka Talyaaniga Michael Damsgaard ayaa kooxo badani ay hadda indhaha la raacayaan kadib markii uu wacdaro ka dhigay ciyaaraha koobka qaramada Yurub ee hadda soconaya. kooxaha Barcelona, AC Milan iyo Tottenham ayay wararku sheegayaan inay wada doonayaan. Sampdoria ayaase ku rabta laacibkan da'da yar lacag dhan 30 milyan oo euro. kooxda Roma ee dalka Talyaaniga ayaa u dhow inay heshiis la gaarto laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka Switzerland ciyaaryahan Granit Xhaka. wararka ka soo baxay Talyaaniga waxay sheegayaan in Roma ay ku rabto 15 milyan oo euro.
dhegeystayaal wararkii ciyaaraha intaa haynoo joogeen.